wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada محمود أحمد برا جراد يوسير كديبو دشنت أحمد عبدي كاين عطوش يأكل اللوجو قال حاري يسيدي قري اللوجو دسلا عطتك بركة عياشة يكسر عند دقمة الدلا يكتر سنقب الكاودل وحايكو يشين دقمة الدلا كانوا هلنا يقدميا قبل كاودل عبدو أحمد عاير أيا وحي حمنا عن الشاقين يكوا أولين سيدي قري اللوجو دسلا عطتك بركة عياشة دقمة الدلا sidoo kale waxa ay sheegeen inay raadin doonaan waxyaabaha laga maarmaanka ah ee hirgelinaya mashruucani jeedada socodkii waxa weey maalintii aan wasxunay wasiirkii madaxtooyada cusba soo jeedisay bayro cusba soo jeedisay waxa tiraahdo dilowta duusan dib u dhis baan rabnaa arrinka waa la qaatay arrinta والله قاطع جنتي كلينت سيدان فيلايو gobolka awdal waxba u qorshaysanatay de marka caasimaday ku qurnayd laakiin codsigiina idinka darteed baa wax qayb la soo raraya halkan la keenay qayb halkan laga dhisay insha Allah hadii la hayra marka waa codsigaad ka codsateen dawladda marka waxaan u dhaadhici doonaa kulli xagga tiradana waa idin soo sheegi doonaa intay tahay wacdad gobolka waxa laga dhisiyaa oo markii hore loo soo qoondeeyay magaalo madaxdiisa 150 guri 420 mitir square ayaa dawladdu hoose waxa ku deeqay runtii rag tujaara rag baa ku deeqay oo dhulka iska lahaa oo bixiyay dawladda dhulkoodii taasana ku suura gashay in ay deeqdiina wasaaradii iyo hay'adaha la kaashanaysan ay ka soo godo maayirka degmada Dila ayaa isaguna waxa uu ballan qaaday inuu bixin doono dhulka laga dhisayo guryaha loo dhisi doono barakacayaashani waxa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Dila guryahan loo dhisi doono waa Axmed Barakaale TV-ga caalamiga ee Royal magaalada Boorama.